لأن ما شلون يذوق الشام. إيران ayaa weerar gantaal ah ku qaaday koonfurta Israa'iil iyadoo iskaroomaadyada u dhaxeeya Iiraan iyo Israa'iil u galay maalintii 8aad. Tel Aviv waxaa ka socda rasaas xooggan iyadoo Iiraan ay ku soo rogtay muujido cusub oo ah gantaalada ridada dheer iyo weerar lama filaan ah. Magaalada Tel Aviv cabsida iyo jahwareerka ayaa cirka isku shareeray markii ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iiraan ee markii la soo gaabiyo loo yaqaano IRGC ay sii daayeen muuqaallo muujinayo gantaalada laga soo ridayo meelo aan la shaacinin. Sida laga soo xigtay IRG, mid ka mid ah gantaalada ayaa lagu weeraray xarun sirdoon oo militari Israa'iil ku leedahay degmada Ramat Gan ee Tel Aviv, iyadoo muuqaalku u kiciyay qaylo dhaan caalami ah. ciidamada Israa'iil ayaa weli jawaab rasmi ah ka soo saarin shaqo joojinta la sheegayo. Wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Abbas Araghchi ayaa bartiisa X ku soo qoray horaantii maanta ciidamadeena qalabka sida waxay si sax ah u tirtireen taliska militariga Israa'iil, xakameynta iyo sirdoonka iyo bartilmaameedyo kale oo muhiim u ah. Xaalka waa allow sahal, yuhuudda godkooda ayay biyo uga soo galeen, habeen lama seexdo maalina lama harsado. Muujidaha iyo harkulka gantaalada istaba jooga oo sidii darandooriga u dhacay ee Iiraan ayaa qalqal geliyay Israa'iiliinta. Wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Abbas Araghchi ayaa lagu wadaa in uu Jeneefa kula kulmo dhigiisa Faransiiska, Jarmalka iyo boqortooyada Ingiriiska si uu ugu wada hadlo barnaamijka nuclearka Iiraan iyo soo afjaridda weerarada Israa'iil, balse Abbas Araghchi waa uu diiday shirkaasi. Madaxweynaha Iiraan Mas'uud Pezeshkian ayaa bartiisa X ku soo qoray waxaan mar walba raadinaynaa nabad iyo xasilooni, laakiin xaaladaha hadda jira sida kaliya ee lagu soo afjari karo dagaalka la soo rogay waa in si shuruud la'aan loo joojiyo gardarrada cadowga iyo in si dhab ah loo damaanad qaado dhammaadka tacaburka argagixisada Sahayuuniyadda. Haddii kale jawaabahayada cadowga waxay noqon doonaan kuwo aad u adag oo laga qoomamayn doono. Hogaamiyaha ruuxiga Ayatollah Khamenei wuxuu sheegay wadahadalka kaliya ee iyaga iyo yuhuudda u furan inuu yahay dagaal.